بسم الله الرحمن الرحيم نبضي داود يال ملك الصلاة شوكتان باكوسو دوادا برنامج كاره وان دينك دياريي فوريتانكي أما بسده فوركي حارونتا حسبك وطني دالكان فرانسيسكا iyadoo ay ka soo qayb galeen dadyo kala duwan oo ka kala socday xisbiyada qaranka mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga wadani iyo dadweyne fara badan hadaladoodina waxa kamid ahaa sida tan اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر waxaa ii farxada inaan ka soo qayb galo xafladda furitaanka xisbiga wadani marka ugu horeysa waxaan salaamayaa bulshada reer Somaliland ee ku nool gobolka Baydhabo guud ahaan gaar ahaan waxaan salaamayaa bulshada ku nool magaalada Oonshe horta waa mahadsantiin halkan Oonshe ugu yaraanba waxaan ka qayb galay ugu yaraan 4 xafladood oo ka dhacay halkan waan ka soo qayb galay anigu waxaan ka yimid gobolka Hoon Al magaalada Lyon waxaanu qabsanay 3 xafladood baanu qabsanay 3 xafladood laba xaflado qaran bay ahaayeen midna xaflad gooniye bay reer Oonshe xafladii labadii xafladood qaran midna nooma iman marka horta waxaan idin leeyahay xafladaha qaranka horta inaad timaadaan oo ka soo qayb gashaan horta way fiican tahay anigu xaflad kastoo qaranku leeyahay halkan waan imaadaa caalamkan wadani anigu waan ictiraafsanay waayo dastuurkaaba ogolba وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدن يا اليمروين مرتشرف تقييمك بدن له وحنعاود شعلها إن هلكن وجههم بريئة وكسلامه حلكا لو عمامد الدوننا عن وجههم بريئة عبد الرزاق إبراهيم وعاوة أو تاريخه تهاي صدق كي بشي كوبات اللي بكون يوشني طبعا أنا كوع عمامد الدونا هول كان لسيتي وحنشعلها إن سرد ويسان نية فرن يا قلب فرن سرد ويسان waxaan jecelahay inaan inta raacsado runtii xisbiga wadani maanta wuxuu ku magacaaban yahay ama uu ku suntan yahay mucaarid berri wuxuu noqonayaa wuxuu higsanayaa inuu noqdo muxaafid dalkan iyo dadkan hogaamiya waxaanse jecelahay in aynu sii tusaalayno oo maaragtay wixii kartideenna iyo waayaragnimadeennii aynu mucaaradnimada kasoo dhaxalay aynu kusii taakulayno waxaan jecelahay mucaaradnimadiisu inaanay noqon mucaaradnimo dalkeena dumisa ay noqoto mucaaradnimo dalkeena dhista mucaaradnimo dadka aan kala fogeyn isku soo dhaweysa mucaaradnimo qarannimada ka shaqayso aan qabyaalad ka shaqayn mucaaradnimo aan qoloqolo ka shaqayn aan qarannimada u adeegta mucaaradnimo la higsado mucaaradnimo ka faa'iidaysata qabyooyinka dawladdeena oo sheegta dhaliisha ee laakiin aan ku digdigin duminta dalkeena oon soo dhaweynayaa cabdirasaaq waxaanan ugu hambaliyeynayaa xilkaa cusub ee maanta loo cimaamo taasi waa taa oo waxaan kaga baxayaa kelmadii aan idhi wadani waxaan jecelahay inaan mid kale idhaahdo anigu caawa afkaan ku hadlaya waa afkii akhristayaasha Oonshe si kale haddaan dhigo waa afkii alias dadka aan garanayn alias waa urur ka shaqaynayay 4 sano ugu dambeysay magaalada Oonshe ayuu ka shaqaynayay wuxuu u shaqaynayay dadka iyo bulshada wuxuu ka shaqaynayay isku duubnida walaalnimada iyo midnimada ummadda halkan degan wuxuu ka soo horjeedaa wixii qoqoba ee bulshada kala fogeynaya wuxuu u heelayahay u taagan yahay soo dhaweynta ummadda iyo ka shaqaynta walaaltinimada ummadda alias waxaa la aasaasay sanadkii 2011 bishii September ilaa maantana waxaan halkan u taagannahay inaan soo dhaweyno oo taageerno cid kasta cidii wax qabsanaysa bulshada waxaan hadalkayga kaga baxayaa Soomaaliland ha noolaato waddanina waynu ducaynaa insha Allah inuu marun kursiga hantiyo si dimuqraadiyad ku jirto aynu magaranaysaa isugu tahaniyadeyno waxa weeyaan dimuqraadiyaddu waxa weeyaan waa vote weeyaan maaha reernimo maaha wax kale waxa weeyaan dimuqraadiyaddu waxa weeyaan waa vote weeyaan waxaan jecelahay inuu vote-kaasu dhex inoo noqdo aad baan idin salaamayaa mudan yaal marweyn mar kale aniga waqtiga soo koobaya
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أدوات مهندسية هاي إمي كروحة كسول وين أحكم شرفات كسمة أساسيشتي كلا يلاهدو طلابو وعبد القادر موسى كسول وعبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرة اللي عطيك أنا مرة سنة مانتين. مرة رئيسا إلهي ومحمد سبحانه وتعالى. نحريسي أن بتقولي هنا كركي سهاها طا رسولك إلهي وصادري إنه نقدر نحريس عالمين طائدين. iyo intii wanaag ku raacday ee asxaabtiisii ahayd oo dhan inta kadib mudanayaal iyo marwooyin kulay caawa halka wax badan ka oran maayo laba qodob oo kaliya baan insha Allah taala doonaya inaan halka ka iraahdo qodobka koowaad waa ka waajibka ah ee ay iskugu nimid wanqalsha xisbigan wadani oo iyar insha Allah taala ka oran doono iyo hambaliyada iyo Cabdirasaaq Xaaji Ibraahim ayaan marka hore ku horeyn doonaa qodobka labaadna kulay wuxuu igu magacaabay inaan ahay ururka Tallaabo kulay Tallaabo waa barnaamij aan soo wadno qaybtiisii koowaadna baxday isagoo ku dhiisana laba kelmadood baan insha Allah taala ka oran doonaa kelmadda koowaad haddaan ku horeeyo inta ururka akhristay Xamse Mare baan leeyahay mucaaridku ha noqdo kii maanta biri wuxuu hiigsanayaa inuu noqdo xisbi talada hantiya oo wadanka qabsada mucaaridkuna waa ka wax dhisay ka wax dumiye maaha dardaaran halka waxba kaga noqon maayo Xamse dhameeyay aad bad mahadsantaan leeyahay ta kale waxaan xoojinta ku dari lahaa oo dhan lahaa qofku markasta wax kasta la sameeyo wuxuu leeyahay caqabado iyo challenge iyo taxadiyaad ka hor yimaado buleeyay kulay inuu qofku u dul qaato oo tiisna sameeyo معاوية وحلا شيئا أفرت سنة إنه حكم كهيي أنتي وهيينا إن مالك لي خلافانه العلم مركوال ويديو حلقوا لي السنة ما حيكون عند معاوية وحيلاني يتذكر عن معمولة مدحضة وهي جميع أنواع هل حريقهم بنا قد حيا حريقا مركا يو جيتيان أنا تبعيا مركا يو تبعيان أنا جيتيان مركا عبد الرزاق يوضني مدحدي سجود وحنا لنا هذا واحد عن ودنا على جيتشي كتبعية هذا دنا واحد كتب عن دبع بدلنا ما في عناه جيتشيا تاو حراعنا يا كلام ودوك تهينو ويسكت تحاملنا هاي الله بابا وين اللي يتحامل قبيلة يقاط بابا وين اللي قدي بلا أسمع يقصدون هالك تريبة بهالكاس لكن ده وضع كي كتيرو بهاش أصلا وإنه يسكيل عليان ما تحت عصبي عبد الرزاق يتيم كيس أمير وحجية كيس كل والله سكين بريدونا وحنو لنا هاي بهاشا كيل عليا وحسب بيجينو يارون نقانين مثل يرهد يرسوق أفرتنا عين الأفانة نوعين ما لهاس متقابل كي يتاكلا خيارون نقان بينو لنا مدوحي سعادية هاي ونفسية العرقة أيو نقطة قفك هجاك قبصنا يانا وإنو نفتي سدرسا أقونهان دينهان ويوحل يرهد ويل والبوح حديدا ومهما صوماليا والبوح حديدا وحا كجرا كوب هداد شاه كشبطو شاهون بوديديا هداد عانا كشبطنا عانون نقنيا marka waxa uu qofku gudihiisa waxa ku jira buu noqonayaa marka hore madaxda waa loo duceeyay ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu madaxdeena cusub ka dhigo kuwa barakaysan oo khayr iyo barwaaqo iyo qabyaalad la'aan iyo horumar dhidida insha Allah ila gudihiisa ku qof ka soo baxay inta waxa raacinaya bila aadamku wuxuu wax ku arkaa kolba maskaxdiisa waxa ku jira horana waanu yiri habeenkii dhaweyd waxa kugu jira baad aragtideeda yeelanaysa haddii ilaahay kama dhiga inteenaas imika cabsi ina qabsato haddaan kaashan qariyo waynu wada naxayna waxaan ugala jeedaa in madaxda iyo dadkuba iyo qof kastoo bilaaadaniba inuu wuxuu wax ku arkayaa uu yeesho indhaha shinnidoo kale shinnida waad aragteen way duulaysaa way soconaysaa ubuxun bay ku dul istaagaysaa ama wax udgoon oo fiican
أما صنكر وحاسم بيصح بارس أيدي وحكلا ماركان waxa idii ka digayana inaynu yeelano aragtiga diqsiga oo kale diqsigu uu soconaya oo boog iyo nabar iyo qashin iyo waxa soo gooyanaya taa aadamaha ka dhigan qofka bilaadanki laba buu dhaxeeya siwa inuu yahay qof positive oo si positive wax u arkayo wanaagsan iyo diilo iyo rajo iyo qof negative wax u arkayo mar walba labadaas buu qofka bilaadanki yahay marka waxa weeyaan labaduna iskama imanayaan kolba waxaad ku celceliso ee aad ku tababarato ee aroor walba aad samaysato baadan mid noqonaysa haddaad markaad soo toostaba wax wanaagsan aad samayso matalan rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam horta midi ku jira qof u baahan aroortii markuu tooso isagoo kaafay cabin oo waxba samayn inuu firfircoonaado doonaya midi ku jira bilaa kaafay بلا وحبة بلا هسير وشيء بلا تبني هذا السيدة تحي وقف ساقف ولا إنك مدي بوجبه هي إن مركو توصوا في الفرعون هذا وبشارة وحينا حديث كرسولك عليه الصلاة والسلام رسولك يحول المتكين هذا صحدا إن هبيكي أروركي مركو توصيو شيطانك هبيكي حلقة وحكا حلا صدق كنت موت سكلا هذا نودقنا قف ولا إنك مدا إن نية إن با markuu seexanayo shaydaanku ina saxa habeenkii saddex kuntimood bay nagu saxaa ta koowaad waxay furmaysaa markuu qofku shaydaanka iska naaro ta labaadna waxay furmaysaa markuu weysaysto ta saddexaadna waxay furmaysaa markuu tukado maalintaasoo dhan qof firfircoon buu ahaanaya ilaan qof wax weeyaan maalintiisii ku qaabile wanaagay bal ka waran haddaad maalintaada ku qaabisho anigoo kuu reebel shalay waxay igu yidhaahdeen iyo kelmado kale saaw dhigmay ka raali ahaad uu lama jeedo inuu wada noocaan ahay laakiin bulsho walba xanuun bay leedahay waxaan aaminsanahay haddii nabi la soo diri lahaa maanta wuxuu nabigaasi nagala hadli lahaa un laba arrimood waayo ilaahay ambiyadu soo diray oo dhanba wixii jiray uu soo diray markii dabka la caabuday kuwii ceebta sameeyay kuwii miisaanka ee naaqusay wixii markaa jiray ee nabar ahaa un bay ka hadlayeen waxaan maleynayaa haddii loo soo diri lahaa inaga wuxuu nagala hadli lahaa warqaadka iska daay iyo qabyaalada malaha nabigaasi inoo dhalaba inta kale oo dhan ku wanaagsan marka waxaan uga jeedaa oo leeyahay oo taasi waa dardaaran guud iyo kulli waana guud hadalkana ku dheeraan maayo waa la iga dambeyn doonaa insha Allah taala aad iyo aadna waad u mahadsantihiin wixii aan asiibay waa ilaahay agtiisa iyo wax wanaagsan wixii aan garab maray waa nafteeda iyo sheedaan aad iyo aad u mahadsantihiin taasana ku soo gabagabeynaya aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Muuse dardaaranka wanaagsan ee uu inoo jeediyey aad buu ugu mahadsan yahay walaalayaal sidaa la socotaan marka laga hadlayo xisbi ama xisbiya laga hadlayo runaantii waxaynu qabyaalada aynu rabnay inaynu kaga baxno xisbiyada oo dhikasta xisbigu doonayo uu galo ceeb maaha hadday qolo u yara badato xisbi laakiin inaynu nahno xisbigii reer hebel baa qalada oo loo arko qabyaalad runaantii waxaan leeyahay xisbiga wadani waa xisbi ballaaran waa xisbi Somaliland oo ka mid ah asxaabta qaranka waa xisbi qof kasta oo han siyaasadeed leh dumar rag dhalinyaro oday waa xisbi soo dhaweynaya qof kasta oo han siyaasadeed leh oo doonaya inuu ka midho dhaliyo hankiisa siyaasadeed waa xisbi soo dhaweynaya way ku mahadsan yihiin dhalinyarada firfircoon ee laatan Faransiiska dhaqaajiyay Cabdirasaaq iyo gruubkiisu laakiin waxa aan bulshaweynta u sheegaya reer Soomaaliland ama reer wadaniba qof kasta oo han siyaasadeed loo Faransiiska ku nool wuu ka soo qayb geli karaa xisbiga wuxuu ka noqon karaa xubin kasta oo xisbiga ka mid ah waxna way dooran kartaa waana la dooran karaa qolada iminka gudoomiyeyaasha iyo xoghayayaasha iyo maamulka dhisan hadday yimaadaan rag firfircoon oo danaynaya xisbiga oo danaynaya Soomaaliland mustaqbalka inay siyaasadda hogaamiyaan cod baa loo qaadayaa waa dimuqraadiyad intaa ku soo koobaya iminkana waxaa ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha ورحمة الله وبركاته. دمانتي وين السلام يا سلامة الإسلام كان السلام السلام عليكم ورحمة الله. أنت كبعد عاو فرحة وين بيتك
حزب وطني دأتي سواسة الصندوق وحزب الشباب ما أنت اللي يرى لكم الكفر حصرها يا ما نقفر حصرها 95% ما تقدر تشوف تحضري 99% هايبر وحويل وانا يرو كوليسا تصبح موجليسا حزبك وطني إنه اللي هي ما أنت اسبدل كين دون إن شاء الله تعالى اسبدل كان دونينا إنا كدر صنو اسبدل خير قبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan bulshada reer Somaliland waxaan kaloo aan halkan ka salaamayaa gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxaan salaamayaa mudanayaasha iyo gudoomiyayaasha qaaradda Yurub ee xisbiga wadani ee nagala soo qayb galay xafladan maanta gudoomiyahooda أحمد ناهي يقدم يكوحجينك عبد الله سليمان طفله روحان كلا سلام يا أحمد عمر أو يسوون الله سعودي وفتيجن وحن هالكن وجب محطة غيا إلهي كسكو مهديسة رمان عد كستو أو كسو قيب قادتي إن إيمان تينو قبصون تحفلة قروح رمضان أينو هالكن كو قبصناي حفلة قواتين كذا waxaan uga mahadnaqayaa naadiga akhriska iyo gudoomiyahoda alias Xamse Cabdi oo inoo suurta geliyay maanta munaasabadan inay halkan ka qabsoonto waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa dhammaan hawlwadeenadii soo qaban qaabiya xafladan gudoomiyahoodii iyo dhammaan gudiyadii waxaan leeyahay aad ba u mahadsantihiin ilaahayna khayr iyo xasanaad haydi ka siin runtii umaan istaagin inaan erayo badan halkan ka idhaahdo balse waxaan doonayaa oo keliya inaan halkan laba qodob aan iska dul taago mid dardaaran ah oo aan kula dardaarmayo bulshada reer Somaliland iyo mid kale oo ah in aan iyo mid kale oo ah inaan iskii baro dhalinyarada aanu maanta halkan ku wada shaqaynayno ee ka mid ah xisbiga wadani laantiisa Faransiiska runtii farxad bay ii tahay inaan maanta la shaqeeyo dhalinyaro aqoon-yahan ah oo aan filayo inay yihiin labeentii dalka Faransiiska waxaan ilaahay uga mahadnaqayaa iyagana aan ku mahadinayaa in ay maanta hawsha ila qaban qaabiyeen inana qabteen bulsho maskax furan oo himilo iyo higsi fog leh oo doonaya inay ka midho dhaliyaan mustaqbalkooda siyaasadeed iyo mustaqbalka hagidda iyo yoolka bulshada reer Somaliland oo aan ilaahay ka baryayo halka ay maanta joogaan in ay ka sii gudbaan mooyaane inaanay dib uga soo dhicin walaalayaal xisbigan maanta aynu daahfurayno ee wadani waxa weeyaan xisbiga ugu da'da yar leh asxaabta Somaliland ka jirta runtiina waxa aan oran karaa xisbiga la yiraahdo wadani waa sakaarana inteeda waa ku duq marka waxaan filayaa in uu xisbiga wadani yahay xisbiga kaliya ee maanta ay dhalinyaradu ku heli karto jaaniskooga hagid iyo higsi amaba himilo sidaa daraaddeed waxaan leeyahay bulshada Somaliland waliba khaasatan dhalinyarada nin kasta oo han leh oo doonaya inuu wax noqdo mustaqbalka dhow iyo ka dheerba inuu ku biiro xisbiga wadani si uu uga midho dhaliyo himiladiisa iyo higsigiisa waana xisbi u diyaara inuu siiyo xubnahooda ama xubnahooda uu siiyo dhalinyarada haweenka iyo waayeelkaba waa xisbiga rajada
وحسبك جوش إيا مستقبلك وحسبك اسكو دوبنانتا وحسبك الدونية إنو مديو أما قابيو إن شاء الله تعالى قابك الرئيس سومالي لان أيو ديسانتهاي إن شاء الله تعالى وحن إلهي كبريا إنو هديو حلك قبطو ونقضو مد مديو أمدا ونقضو مد لغا أركو عيد كاستا أو أقوين يهن أو إندر كرد أو قبل كاستا أو رير سومالي لان أيو كتشرتو هذا الكيغا ديرين مايو مر لباد يا مر صدحات بان وحنون mahadnaqaya dhalinyaradii soo agaasintay xafladan ama madashan bilan ee aynu caawa joogno waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay inay nala joogaan maamulkii qaaradda Yurub oo safar dheer inoo soo galay mar labaad iyo mar saddexaad baa intii xafladan ka soo qayb gashay intii qaban qaabisay iyo intii soo ajiibtay dacwadayadaba وأنا محدنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.